وقل رب زدني علما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله تعالى وحلنا درسي تفسير كسورة القمر. آية هوريس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. suuratu alqamar, dayaxa suuraddeedii, suuradda lagu magacaabay dayaxa. ilaahay subxaanahu watacaalaa uu ka mid dhigay suuradihii uu ku soo dejiyey intaan nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam maka ka hijroon. suuraddan oo ilaahay subxaanahu watacaalaa uga hadlay ummadihii hore iyo sidii ay rususha ilaahay uga hor yimaadeen iyo wixii ay ku dambeeyeen oo baaba ah iyo guushii ilaahay subxaanahu watacaala uu rususha siiyey, iyadoo arrintaas looga dan leeyahay dadka jooga oo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam loo soo diray inaysan iyaguna jidkii rusushii hore kuwii beeniye marin oo ay ka digtoonaadaan si wixii ku dhacay ummadahaas rususha ku kufriyey aysan ugu dhicin, balse sida la ogyahay kama faa'iidaysan waanadaas iyo digitaanka nimankii mushrikiinta ahaa ay jidkay kuwii horey mareen oo wixii ay gaaladii hore rususha ilaahay ku sheegi jireen oo aflagaado iyo been abuurada ayay ku sheegeen. iyagana waxaa ku dhacay wixii kuwii hore ku dhacay oo waa laga adkaado oo ilaahay waa baabi'iyey subxaanahu watacaala. qaabka baabi'intu haba kala duunaado. bismi illaahi araxmaan araxiim. bismi illaah, ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabanaynaa. magacyada ilaahay waa ismun mufrad mudaaf waaye. magacyada ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ku bilaabanaynaa oon ku tawasulaynaa, oon ilaahay ugu dhowaanaynaa. xuska ilaahay ayaan ilaahay ugu dhowaanaynaa oon ku bilaabanaynaa tafsiirkan. allaha arraxmaani naxariista badan, allaha arraxiimi naxariista. iqtarabat isaaca, ilaahay wuxuu yidhi iqtarabad waa dhowaatay assaacatu, saacaddu waa dhowaatay qiyaamadii. wanshaqa waana kala jeexmay oo waa kala dilaacay alqamaru dayaxu. wanshaqa waa kala dilaacay oo waa kala barmay, waa kala jeexmay alqamaru dayaxu. wa in yarow hadday arkaan kuwa gaalada aayatan, hadday arkaan aayad calaamad tusinaysa saxnimada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo xaqa, yucriduu way jeestaan oo wayaquuluu waxay yidhaahdaan sixrun ay haadaa kani sixrun waa sixir, sixirkaasoo mustamirun joogta ah. ilaahay subxaanahu watacaala suuraddan bilowgeeda wuxuu uga warramay qiyaamadu inay dhowdahay oo adduunku uu dhammaan rabo. sida cadowga ilaahay ee sayniska sheegtaa ay qaarkood ku andacoodaan in adduunku uu jira 4 bilyan iyo bar, intiioo kalena uu jiraayo waa been. wax warana kama hayaan waxa dhici doona. adduunku marka uu dhacayana uu burburaayo ilaahay baabi'inaana sida caadada adduunka u ahayd wax u dhici maayaan. wax walbaa isbeddelaya oo qorraxdu meeshii ay ka soo bixi jirtay, meeshay u dhici jirtay ayaa ilaahay amraa inay ka soo baxdo. marka xisaabtii ilaahay subxaanahu watacaala iyo qaabkii sunnadiisu ahayd adduunku isu beddelayay wax uma sii soconayaan. marka iyagu waxay xisaabinayaan gaaladu wixii ay yaqaaneen inay wax kaga qiyaas qaadanayaan. wax xisaabaad ay ku sheegaan. maala waxay ku leeyihin sanadkan soo socda ama 10 sano kadib ama 100 sano kadib qorrax madoobaadku maalintaas oo dhaca daqiiqadaas, waana ku run sheegayaan hadday doonaan. marka waa xisaabtii horay dib ugu laabanayaan. maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala
adduunkan waa nidaamiyey 12 bilood ayuu ilaahay ka dhigay ilaa waagu ilaahay adduunka abuuray ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahran fii kitaabi illaahi yowma khalaqa asamaawaati waalard ilaa maalinta ilaahay ciriya dhul abuuray tiradaasay biluhu 12kaasi ahayd marka sidaasay gaaladu ka warhayaan way og yihiin marka waxay qabaan xisaabtaasi ku soconayaan waxay u moodayaan laakiin xisaabtu sidaas inay sii ahaa doonto ma oga xisaabtaas inay soo afjarmayso oo qofkii noolaaba oo caafimaadka qabay oo dadka isku da'da ahaayeen ay wada nool yihiin oo u dhimanayo wuxuu dhintan aan la ogeyn isagoo hurdaaya naftu ka baxe marka sidii sunnadii caadiga ahayd oo qofku inuu xanuunsado ama shil ku dhaco oo u dhimanaya maaha sidaasoo kale ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qiyaamada wuxuu keenaa baktatan iyadoo lama filaana marka ilaahay waa dhowdahu yiri qiyaamadii waa soo dhowaatay iqtarabad way dhowaatay assaacatu qiyaamadu wanshaqa waana dilaacmay alqamaru dayxu nimanka mushrikiinta ayaa si ay nebiga sala allahu calayh waaalih wasalam u rumeeyaan waxay weydiiseen mucjiso aayad tusinayda rasuul ilaahi inuu yahay markaabaa ilaahay subxaanahu watacaala dayaxa uu kala baray oo 2 dhinac ayuu maka ka kala xigsaday waa aayad wixii joogay ay arkeen meesha ahayd inay rumeeyaan waxay dhaheen waa sixir waana indhasar caadiya xaqiiq maaha haddana waa isku laabteene waxay dhaheen sixirka caado waxa u ah dadka la joogo qabtaa cidda uu ka hor muuqdu qabtaa hadduu na sixray innaga ay leeyihin nebiga ka hadlaya calayhi salatu wasalaam innaguu nagu ekaanaa sixirku cid naga maqan sixir qaba maayee balaynu sugno dayuxuna wax dhulka yaalla maaha waa wax cirkaas ku jira marka haddii uu wax xaqiiqa yahay waa la wada ogaa doonaa markaaday bilaabeen inay weydiiyaan dadka magaalada imaanaya cid kastay u sheegaan waa u sheegtay dayaxala waa aragno 2 qayboo noqday 2 qayboo noqday markaaday weene haadaa kan waxay dhaheen وإن يروا هدي أركان آية هدي أركان يعرضوا واجستان ويقولوا وحي هذا سحر أي هذا كان سحر وسحر سحر كاسو مستمر جوكتاه عدكسو قاربا إنه كلية ما وسحر كانوا صعدي لهن وجوكتاه تدكي حتى دبدها جري واكاس إن سر عادي ساسي قالدي يكون جوابين إلى يومنا هذا قالوا حويان وإنكران أرنت أيضا إن دعضي عليكم السلام ورحمة الله وإنكران إلهي يحر وكذبوا وابينيا واتبعوا ويراعين أهواءهم هوذوا ذي الراعين وكل أمر أرنكستا مستقر مستسوغان واي ولقد حقيقة جاء وايمد هم إياغا وأيمد من الأنباء حق وررك وحا أغيمد ما شيب أغيمد فيه ماغا وكدح سوغان ياي مزدجر مثل هو أنتوب حكمة حال ويا حكمة هي حكمة وحكمة واي أما كسف حكمة واي وركاس حكمة داسو بالغة حير دير فما تغني محي كتري محي تري النذر وكوى الدقاه جمع النذير محي تريان دوان ذي اللقادنين محي تريان استفهام كاري عليكم السلام ورحمة الله أما بحكمة بالغة فما تغني مطر النذر كوي الدقاه وحبا مطر إلهي وحويري أما الإنذار دقيتانكي وحمطرين فتولى كجيسو رسولك الله عليه الصلاة والسلام عنهم إياك كجيسو كجيسو سيكستد ودكتي آيات كيبالة تسيي وحيسو تاغين واسحر مستمر كجيسو يوم يدعو الداعي واذكر حس يوم مالين حس يدعو ويرى الداعي كان يراه وملك إسرافيل مركو انتو بونك يريو وحين ولا دنتان haddana muddo kadib uu yeeriyo oo wax walba ay soo noolaadaan yowma maalin yadcuu uu yeerayo addaaci kii yeeraayo ilaa shayin shay xaggiibuu u yeeri shaygaasoo nukurin la dhibsado la kohsado ayuu ugu yeeri dadkii qiyaamuu dadkii u yeeraa soo baxuu leeyahay khushacan xaal ay yihiin kuwa ay khushuucsan tahay ay hoganayso absaaruhum aragyadoodu qalbigiibaa cabsanaya meeshii la isaga yeeraahu qofkii u degdegaa markaa indhihii baa marka iyaguna cabsanaya khushuuc gelaya
yakhrujuuna waa ka soo baxayaan ilaahi min alajdaasi qubuurahay ka soo baxayaan kaannahum waaba iyagoo jaraadun ayax oo kale ayaxaasoo muntashirun faafsan farabadada dadku ay fara badan yihiin iyo fudaydka ay qabaan waxay la mid yihiin ayax oo kale wey ayax waa wax fara badan oo sida loogayahay jihana ma laha meel u socda ma laha saasay isu dhex marayaan hadba dhinac bay aadayaan dadku sidaasoo kale ayaad u moodaahu ilaahi subxaanahu watacaala muhticiina xaalayhin kuwa u degdega ay musriciina u degdega ila daaci kan yeeraya xaggiisa u degdegayaan waa malagii yaquulu wuxuu leeyahay alkaafiruuna gaaladu waxay leeyihiin haadaa kan yowmun maalin waaye maalintaasoo casirun culus waaye maanta maalin adag waayay leeyihiin gaaladii waxaa laga fahmaa dadkii mu'miniintaha ee allah subxaanahu watacaala rusushiisa rumeeyey in ayaga maalintu inaanay ku adkayn laakiin gaalada yaquulu wuxuu leeyahay alkaafiruuna gaalada dhaha mu'miniinta dhihi maayaan haadaa kan yowmun waaye maalintaasoo casirun adag wey cala alkaafiriina hayru yasiirun aayadku ilahay ku yiri gaalada dushooda mid ku sahlan hayrkii waaye kuma fududowa marka aayaadkan ilaahay wuxuu ka warramay aayaadkan soo socda insha allah rusushii hore iyo ummadahoodii kuwii rususha ugu waaweynaa qaar ka miduu ilaahay sheegay si loogu waana qaato ilaahay wuxuu yidhi kadabad waa beenida qablahum iyaga hortood nebiyullaahi moxamed sala allahu calay wasalam kuwaan hortaagan ee mushrikiinta iyo yuhuudda iyo kuwaan hortaagan ee gaalada ah waa beeniyey hortood qowmu nuuxin nuux qoomkiisaa beeniyeen fakadabuu waa beeniyeen cabdanaa addoonkeenay beeniyeen oo waqaaluu waxay dhaheen majnuunu ay haadaa kani majnuunu waa mid waalan haadaa kani majnuun waayay dhaheen wasdujira waana la canaantay waa la hufay nebiga ilaahay subxaanahu watacaala waa la handaday ku tooganaynaa halayidhi fadacaa waa yeeray waa baryootama rabbahu rabbigiisa u yeertay rabbigii ayuu u yeertay muxuu yidhi annii anigu maqluubun mid laga adkaada baan ahay mid laga qaalib noqdaan ahay buu yidhi rabbigayo ee fantasir hiili ay fantasirna ilaahu ii hiili ilaahu waa layga adkaaday ilaahu ii gargaar buu yidhi 950 sano oo dadka tawxiidka ilaahay ugu yeeray way diideen waxay ku diideen waxay dhaheen laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquutha wayacuuqa wanasr ilaahyadiina ha ka teginina dad markoodii hore ahaa bani aadam oo weliba rag saalixiin oo fiicfiicnaa ah sida saxiixulbukhaari ku sugan ibnu cabbaas radiallahu canhuma uu sheegay ayay markii dambe ilaahya ka dhigteen oo maxay uga dhigteen shaydaan baa ugu sheekeeyey wuxuu ahaa waalidiintii idinka horreeyey iyagaa lagu waraabi jiray roobka iyagaa lagu siin jiray niman wanaagsanay ahaayeen shantaas nin waddan iyo yaquuth iyo yacuuq iyo nasr ahaayeen waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan iyo suwaac iyo yaquuth iyo yacuuq iyo nasr 5 nin oo bani aadama oo qowmu nuux ka mid ah oo wan wanaagsanay ahaayeen markay dhinteen aad dadkii ka murugoodeen caalim dhinta waaye taqi ahaa hal ma ahaba dhowr bay ahaayeen maxaan samaynaa ay yidhaahdeen markay ka murugsan yihiin oo arkaa shaydaan u yimid wuxuu yidhi wanaaggoodii khayrkoodii saa u xasuusataan aninsibuu majaalisahum meelahoodii waxaad dhigtaan ansaaban wax ka taaga wax ayagii u eg ama magacoodii ku qoran yahay wax aad ku xasuusataan ayagii idin xasuusiya meeshay fadhiisan jireen ood ku taqaaneen ka taaga dadku markay meeshii arkaan wixii qofkii markay xasuustaan ninkii sheekha ahaa ay meeshiisii ay xasuustaan sida gaalo hadda ay sameeyaan gaalo hadda waxay sameeyaan markuu qof dhinto meesha ayax waxay dhigaan ubax iyo waxbay dhigaan dhiray ka taagaan calaamaday ka taagaan waxaa arkay meel aad isleedahay waxaan waa maxay waxaan meeshan dharkan iyo huwan iyo waxaan markaa weli meeshan meyd waayo qof baa shil ku gala mar meeshay dhigayaan marka sidaasoo kale way ku xasuusanayaan marka sidaasoo kale uu shaydaan ku yidhi walajeedku muxuu ahaa ilaahay inay xasuustaan waad aragta haddaad lacala suuqa aad aragto waxaa arkaysaa haddaad cimaamad wadatoo kale
ama gabadhii xijaabka wadatay markii nin muslima ama gabar muslim nin muslima oo sigaar cabaya markuu arko waxaa laga inuu sigaarkii tuuro ma kaa baqaayo laakiin waa ka xishoon marka qofkii khayrka waad ku xasuusane marka qofkii khayrka waad ku xasuusan ulajeedku marka saas u ahaa ilaahay aad xasuusatiin say u caabudi jirteen aad xasuusatiin markaas aad ilaahay u dhowaataan dadkaas waa dhinteen wuxuu yidhi ibnu cabbaas falamaa nusiya alcilmu cilmiga markii la iloobay cilmigu maxaa waaye waa laba cilmi markii la iloobay cilmi tawxiid markii la iloobay sidoo kale cilmiga labaad sababtii loo sameeyey waxaan markii la iloobay ee ahayd in ilaahay lagu xasuusto ilaahay la caabudo ayaa shaydaan u yimid markaaba ummadihii dambe wuxuu ku yidhi kuwaan aad u jeediin kuwii idinka horreeyey roobka iyagaa lagu sii jiray markaabaa ilaahay nebiyullaahi nuux soo diray oo uga digay inay caabudaan waa diideen marka wahaakada ilaa maanta waxaad arkaysaa dad laga reebi la'yahay dad dhintay tuugmada ka dhaafa waxay leeyihin may waa owliyo war ha u yeeranina sheekhaan war sheekhaan ha u yeerana war sheekhaan ha tuuganina war sheekhaan ha baryanina war qur'aan kariimka akhriya meel kasta qur'aanka ilaahay wuxuu tilmaamay rusushu isagay bari jireen hadda nebiyullaahi nuux fadacaa rabbahu rabbigiisoo bari cid kale ma baryin wa zakariya id naadaa rabbahu zakariya markuu rabbiga u yeertay nebi walba wa ayuuba id naadaa rabbahu ayuub xilli uu rabbiga u yeertay wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi dulumaat an laa ilaaha ilaa anta marka rusushiyay bari jireen ilaahay qur'aanka wax allaale waxa duca ku sugan waa maxay waa rabbanaa ayaa u badan rabbi ayaa ku xigta allaahumma ayaa u yar inta kale waa ilaahay sifadiisa tilmaantiisa oo ilaahay lagu baryayo sida laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin oo kale ma arkaydin nebi la baryaayo ama jinni la baryaayo ama malag la baryaayo ama mid lagu tawasulayo qur'aanka lagama helo waana hadalkii ilaahay wadaadda qur'aanka akhrina oo kaa xifdisan oo dadka qur'aanka bara waxaa afka kama qaadaan markay baryootamaan sheekh magaciina sheegaan halkay ka keeneen maxaa dhacay marka la yidhaha waxay leeyihin ilaahay bay nooga dhow yihiin waa nooga ag shafeecaya mushrikiintu intaa un bay oran jireen waa ujeedaa nasal allah asalaamata walcaafiya ilaahay wuxuu yidhi marka fadacaa waa yeeray nabiyullaahi nuux rabbahu rabbigiis u yeertay annii anigu maqluub mid laga adkaada baan ahay fantasir ii gargaar ilaahay wuxuu fafataxnaa waa furnay abwaaba samaa samada albaabadeedaan furnay bimaa'in biyaan ka furnay munhamirin fara badan wey wafajarnaa waan burqinay alarda dhulka cuyuunan xagga indhaha yani wafajarnaa waa burqinay cuyuuna alardi dhulka waxa waye ilihiisa waa wafajarnaa waa burqinay alarda dhulka cuyuunan xagga indhaha yani ilaha ilihii dhulka ayaa la burqiyey oo meel allaale meesha biyo ka imaan karin faltaqaa waa kulmeen almaau biyihii calaa amar dushiisa ku kulmeen amarkaasoo qad qudira la qorsheeyey biyihii ilaahay subxaana wa tacaala samada sare ibnu cabbaas wuxuu leeyahay muxuu ahaa majaraadka waxa galaxy ay dhahaan ayaa ilaahay biyaha ka keenay marka ma aha cirkan dhow iyo samadan ma aha meel koraa ilaahay biyaha ka keenay kuwii korawa kuwii kalena waa dhulka biyihii waxay ku kulmeen labadii biyo dhex bay ku kulmeen sida aaweed nebiyullaahi nuux doontiisii markii ilaahay biyihii amray in dhulkuna biyaha laqo cirkuna roobka joojiyo biyihii dhulka markay degaayeen nebiyullaahi nuux doontiisii wastawat cala aljuudiy buur dusheeday ku hakatay marka doontaas waxay sabaynayday buuraha ka kor biyihii marka dhulka laqeen doontii waa soo degtay buur dusheeday ku hakatay dhulkii maba gaarinba biyuhu marka waxay ahayd meel kastay tageen biyahaasina ma ahayn biyo ku ekaa meel gooniya dhulka dhammaan dhulka ilaahay subxaana wa tacaala koobeen sida aaweed nebiyullaahi nuux baa ilaahay amray inuu wax walba xoolaha iyo dhirta wax walba uu nooc ka soo qaato oo doonta uu geliyo si ay u sii tarmaan waa ujeedaa marka qul naxmil fiiha min kullin zawjayn ithnayni nooc walba shay walba laba nooc ka soo qaad ka xambaar baan ku dhahan
markaaba shay walba xoolihii ha noqdaan wixii kale ha noqdaan marka waa la baabi'iyey biyihii marka meel bay ku kulmeen uu leeyahay la qadare waxamalnaa waa xambaarnahu isaga calaa daati alwaaxin waxamalnaa waa xambaarno ilaahay yidhi nuux isaga calaa daati alwaaxin alwaaxyo mid u saaxiiba mid alwaaxyo leh waa doontii waay iyo wa dusurin musbaaro markuu samaynayo waa ciddii ugu horreyday oo doon samaysa way ku jeesjeesayeen qaala in taskharuu mina fa innaa naskharu minkum kamaa taskharuuna wey haddaad nagu jeesjeestiin sida aad noogu jeesjeesa innagana idinkugu jeesjeesi doonaa marka waa aayad markastoo qofku doon arko ama markab arko waa inuu xasuusto bilowgiisii bani aadamka dhulka ku nool dhan halkaasaa lagu badbaadiyey waalidkood ilaahay wuxuu yidhi waxamalnaa waa xambaarnay nabiyullahi nuux calaa daati alwaaxin alwaaxya mid u saaxiiba wadusur iyo musbaaro tajrii ku soconaysa biacyunina aragtideenna eegmadeenna jazaa'an abaalgud daraaddeed liman cid loo abaalgudayo kaana ahaaday kufira mid lagu kufriyey nebiyullaahi nuux loo abaalgudaayo dadkii mu'miniinta ahaa ilaahay wuxuu laqad xaqiiq taragna waa ka tagnay taas waa uga tagnay doontii ama halaagaas aayatan aayad ee fahal min mudakir ay fahal min mutadakir fahal mawjuudun ma joogaa min mudakiri mid waantooba ummad kufriday si kasta loogu waaniyey wax lagu kari waayey nebigoodii 950 sano oo dhex taagnaa markii dambe go'aansaday inay toogtaan ilaahay u qaylo dhaansaday ee la baabi'iyey dhammaan wixii dhulka ku noolaa marka laga reebo wax yar cid ku waantooda ma jirtaa ilaahay fakayfa sidoo kaana ahada cadaabi cadaabkaygi waa nudur ay wa indaari iyo digitaankeygi cadaabku waa daraa digidduna waa badneed waay ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqdii yasarnaa waa fududayn alqur'aana qur'aankan ilaahay waa sahlan uu leeyahay lidikri kuwaan toobid baan u sahlnay ee fahal min mudakir ay fahal mawjuudun ma joogaa min mudakirin ay mudakiru mid waan toobaaya qur'aankan waa sahlna uu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala ee ma joogaa min mutadakirin mid waan toobaaya qur'aanku waa fudayd xifdintiisaa sahlan sidaa waxaa arkay ilmo yareeroo 6 jir 7 jir oo qur'aanka korka ka xifdisan 2 wiil oo isla dhalatay midna 7 jiray midna 8 jiray ayaan qur'aan markuu imtixaamay aayad kasta say u saxaayeen waan ka shakiyay waxa isla kitaabka eegayaan baa isla markaasaan kitaabka soo jeediyey haddana waxaan ka shakiyey gadaalay ka eegayaan miya aad baan uga shakiyey ilmaha yararka isla dhashay se u xaafid u ahaayeen 7 jir 8 jir waa xasuustaa ka yarkoodna waa xifdiyaan sidee ku dhici kartaa wax ilaahay kitaab sahla saasoo kale waxaa sahlan qur'aanka fahamkiisa sahlan caqiida lagu wareero ma aha waa wax iska sahlan rabbiga ku abuurtay caabud ujeeda waxaa sahlan ku dhaqankuna waa sahlan yahay ilaahay waa fuudeeyey arkaanta ugu weyn islaamka waxa waaye waa 5 tiir islaam waa iyaguna waa sahlan yihiin tawxiidka ilaahay subxaana wa tacaala 5 salaadood qofku tukado zakada bixiyo soomo xajiyo waa wax sahlan qofka ku adkaato mar kale ha sameeyo looma haysto ujeeda waa sahlan yahay marka qur'aankii waa sahlan yahay barasho ahaan uu sahlan yahay wuxuu u sahlan yahay faham ahaan wuxuu u sahlan yahay xifdin ahaan wuxuu sahlan ku dhaqmid laakiin yaa raba waaye rabitaan yaa le waaye ilaahay wuxuu walaqad xaqiiq yasarna waa fududayn alqur'aana qur'aanka lidikri aan u fududayn ee fahal min mudakir ma joogaa ma jiraa mid waan toobaya kadabad waa beenida caadun waa qolo kale marka iyo reer qoom nuuxi ka dambeeyeen qolo aad u kibir badan ahaayeen reer caad weliba yidhahdeen yamani ahaayeen waxay dhaheen yaa naga xoog badan qaaluu man ashaddu minna quwa yaa naga adagay dhaheen waxaa hadda maanta aad maqli super power iyo waxaasay ahaayeen kadabad waa beeniyeen caadun waa beeniyeen yay beeniyeen rasuulahum huudan bay beeniyeen waa fakayfa sidee buu ilaahay kaana ah cadaabkay wa nuduri iyo indaari digitaankii seebu ah innaa annaga arsalnaa waa dirnay calayhim dushooda riixan dabayl baan ku dirnay dabayshaasoo sarsaran qabow badan fii yowmin maalin aan ku dirnay fii yowmi naxsin mid la sharaysto maalintii la baasaysto maalin balaayo waa maalintaasoo mustamirin joogtaahoo 7 layaalin wa 8 ayaamin xusuuma waa 8 maalin 4 lagu bilaabaa ilaa 4 socday dabayl aan kala joog lahayn tanzicu way rujinayo ilaahay dabaysha annaasa dadka
kaannahum waaba iyagoo acjaazu nakhlin timir jiriddeed oo kale ah munqacirin oo la rujiyey weyne intay ka qabaan dadka iyaga ah fakayfa sideeba kaana ahlu ilaahi alcadaabiya cadaabkay wa nuduri iyo digitaankii walaqad xaqiiqda yasarnaa waa fududaynu ilaahay yidhi alqur'aana qur'aanka lidikri aan u fududayno kuwaan toobid kuwaana qaadasha fahal min mudakir fahal ma jira ay mawjuudu min mudakir ay min mutadakir qofka kuwaan toobaaye kadabad waa beeniyo ilaahay yidhi thamuud waa beeni waa qolo kale nebiyullaahi saalixay beeniyeen binnuduri ay birusul rusushiyay beeniyeen hal rasuul qofka beeniya rususha dhamma wada beeni oo faqaaluu waxay yidhahdeen abasharan mina waaxidan natabicu ay an natabicu ma raacaynaa abasharan bashar qof mina annaga naga mida waaxidan oo mida natabicu miyaan raacaynaa ina annagu idan haddaba lafii dalaalin baadidan ku sugannahay iyo wa sucurin wareer iyo waali bay dheheen ma qof annaga naga midaan raacaynaahay dheh hal qof oo annaga naga mida miyaan raacaynaa maya baadiyaan ku sugnaa haddaan raacno iyo wareerba waxay yidhahdeen abulqiyaam ma la ride addikru waxyiga calayhi dushiisa min beyna inaga dhexdeen ma inaga dhexdeenna isagana ka doortay oo isaga waxyi la siiyo ilaahay door saasay dheheen bale maye huwa isagu kadaabun beenaale waa yidheen ashirun beenaale waa yidheen ashirun sharrow ah beenaale shar badan waa yidheen nebiga ilaahay saa kaleeyi ilaahay wuxuu yidhi sayaclamuuna waa ogaan doonaan qadan beriyay ogaan doonaan man waa kuma alkadaabu beenaalaha al asharu sharta badan inaa inagu mursilu naaqa hasha kuwii diraya baan nahay fitnatan xaal ay tahay fidnad daraaddeedan u dirayna imtixaan lahum iyaga ay u tahay ee fartaqib u kaadi nebiga allo saalixow hum iyaga u kaadi wastabir isna sabarsii dul qaado wanabi uga warram hum iyaga ana almaaa in biyuhu qismatun kaltan uu yahay baynahum dhexdooda iyaga iyo hashaas kullu shirbin kal walbaaba muxtadar mid loo soo xaadirayo loo imaanaya waay fanaadow waa u yeerteen saaxibahum saaxiibkooda u yeerteen fatacaataa waa isi siiyey facaqara waa buqmagooyo oo waa dhaawacay u dhimatay wuu dila hashi ilaahay wuxuu fakayfa sidaba kaana cadaabi cadaabkayga iyo wa nuduri digitaankayga seebu ahaa inaa annagu arsalnaa waa dirna calayhim dushooda sayxatan qaylan ku dirna waaxidatan keliya allah subxaana watacaala wuxuu yidhi inaa inaga arsalnaa dirna calayhim dushooda ku dirnay nebiyullaahi saalix kuwii beeniye waaye oo weliba shardi xiray oo yidhaahdeen saalixow haddii dhagaxaas neef geela ilaahay ka soo saaro waa ku rumaynaynaa markaaba ilaahay neef geela ka soo saaray alaykum salaam waraxmatullah markuu ka soo saaree waxay dhaheen waa sixir waayahay ilaahay wuxuu neefkaas geela maray leedaa ceelka inay iyadu cabto marna adinkaa leh ha taabanina waa digniin labaad waa midkiiba u yeerteen buu ilaahay yidhi fanaado waa u yeerteen saaxibahum saaxiibkood fatacaataa waa isi siiye facaqara waa buqma jare hashiina waa dileen ilaahay subxaana watacaala waa baabiye fakayfa ilaah wuxuu sidayba kaana cadaabi cadaabkaya wa nuduri iyo digitaanka ee indaari inaa annaga arsalnaa dirna calayhim dushooda sayxatan qaylan ku dirna waaxidatan qura hal mara lagu qayliy oo fakaanuu waxay ahaayeen ka hashiim almuxtadir sida midka samaysanaya muxuu ahaa jabadka waxa ka daata oo kale hashiimkiisii walaqad xaqiiqda yasarnaa waa fidino ilaahay wuxuu waa fuudayn alqur'aana qur'aanka lidikri aan u fuudayn kuwaan toobid iyo kuwaan qaadasho iyo xasuusasho fahal min mudakir fahal ma jiraa ay fahal mawjuudun min mudakir mid waan toobaya kadabad waa beeniyeen qolo kale waay qowmu luutin luut qowmkiisina waa beeniyeen binuduri nudurtii kuwii digay beeniyeen gaalnimada waxa u dheeraa ficil xumay samay jireen oo raggaa gadaal isaga tegi jiray walciyaadu billah ilaahay wuxuu inaa annaga arsalnaa dirna calayhim dushooda xaasiban dabayl dhagxaan wadataan ku dirnay ilaa aala luutin luut ahalkiisa mooye dadkii rumeeye luut mooye isagiiba waa najaynaa waa badbaadin hu iyaga bisaxar goor dambe habeenkaan beeniye nicmatin nicmad daraaddeed min cindina annaga xaggeenna ka ahto ilaah yidhi kadaalika sidaasoo kale nebiyullaahi luut loo badbaadiyey ayaa najzi u amaal marina man cid shakara mahadnaqda walaqad xaqiiqda andara waa diga luut hum iyaga kuwa gaalada waa u diga badshatana qabashadeenna uga digay fatamaaro waa ka murmeen ama waa ka shakiyeen binudur waxay ka shakiyeen waanadii
digitaankii walaqad xaqiiqdi raawaduu waa ka dooneen luud bay ka dooneen can dayfi martidii ka dooneen martidii bay rabeen inay faraxumeeyaan uu ka ehbiye sida suuratu huud ilaahay sheegay war alaysa minkum rajulun rashiid war nin caqli idinkuma jirin miya xishoo dar war martida ha igu ceebaynina lama celinayo innahum la fii sakratin yacmuun ilaahay waa sarkhaansan yihiin buu yidhi sida shaydaanku macaasida uu qurxiyey kuwa maanta joogo shayaadiinta ee meel walba dadka u qasbaaya waxa weeyaan faaxishada waxa weeyaan waa saasay ahaayeen ilaahay run badana way soo laabteen marka ilaahay wuxuu fatamasnaa waa tirtirnay acyunahum indhahoodaan tirtirnay faduuquu intaan ilaahay cadaabina indhala'aana lagu riday ayagoo indhala markaas cadaab lagu bilaabay ka waran qof indhaloo dhagax la dhacayo hadduu soo jeedu dayaayo waa laga yaaba inuu gambado oo waxa weeye laakiin hadduu qofka indhaha laga tuuro meel looga yimaanaya ma garanayo ilaahay wuxuu yidhi faduuquu waxaan dhahnay dhedhemiya cadaabii cadaabkayga iyo wa nuduri digitaankii wixii ka dhasha wey walaqad xaqiiqadii sabaxa waa ku waabariisum iyaga bukratan goor hore cadaabku cadaabun cadaabaa ku waabariisay cadaabkaasoo mustaqirun joogtaa oo markii adduunka lagu cadaabay horena naaray ka galeen fa udkhiluu naaran buu ilaah yidhi falam yajiduu lahu min duuni illaahi ansaaran qowma nuux faduuquu dhedhemiyaa layidhi cadaabii cadaabkayga wa nuduri iyo digitaankayga wixii ka dhasha wa indaari walaqad xaqiiqadii yasarnaa waa fuudayn ilaahay alqur'aana qur'aanka lidikri aan u fuudayna fahal min mudakir mid waan toogaa ma jira walaqad xaqiiqada jaa'a waa yimid aala fircawna fircawn ahalkiisa atbaacdiisii waxa u yimid fircawn waaye annuduru kuwii digaayaa u yimid nabiyullaahi muuse iyo haaruuni kadabuu waa beeniyeen aalu fircawn biaayaatina aayaadkeena kulliha dhammaanteed waa beeniyeen intaasoo mucjizo layska daba keenay ushii gacantii muxuu ahaa rahdii dhiiggii wax allaale waa beeniyeen ilaahay wuxuu fa akhadnaa waa qabanahum iyaga akhda casiizin mid adag qabashadiis casiiskaasoo muqtadirin awooda markaas intaasoo dhan waxaa looga soo warrama qowmu nuux qowmu saalix qowmu huud qowmu luud waxaasoo dhan waxaa looga soo warrama waxaa loo jeedaa gaalada hortaagan nabiyullaahi moxamed sal alla ly slam ilaa yowmina haada ilaahay wuxuu akufaarukum nimanka mushrikiinta abujahal raggiisii wa akufaarukum magaaladiina khayrun ka khayr badan min ulaa'ikum kuwiinaas kuwaasaad ka khayr badantihiin waa idinka cumri dheeraayeen waa idinka xoog badnaayeen waan la baabi'ey amase lakum idinka waxaa idin sugnaa baraa'atun beri ahaansho yood beri ka tihiin cadaab badbaado fi zuburi kutubada idinkugu sugan ma kutubaad ka daalacateen idinka inaan laydin cadaabeen mase kuwaasaa ka khayr badantihiin ilaahay amase yaquuluuna waxay leeyihiin waa waxay dhahayeen naxnu inagu jamiicun isku jir baan isu tag baan nahay jamiicaasoo muntasirun gargaarsanaya adkaanaya ilaahay wuxuu yidhi sayuhzamu waa la jebi doonaa aljamcu jamacaas isutaggaas wayuwalluuna waana jeedi doonaan addubura dabaday jeedi doonaan waa carari doonaan mucjizada qur-aanka u fiirso ummadihii hore ilaahay wuxuu ku baabi'iyey subxaanahu watacaala wuu sheega dabaylo iyo dhulkoo lala gooyey iyo mataqaanaa biyahoo lagu qarqiyey kuwaan nabiyullaahi moxamed sala allahu alay slam kasoo horjeeda ilaahay sida loo cadaabaa u ilaahay sheegay waa inay carari doonaan dabadana jeedi doonaan yani dadkaa lagu mu'miniintaa lagu sallidaa waa iyaga oo fiir sidii aa dhacday cumar wuxuu yidhi ma fahmin aayaddan ilaa maalintii badar aan arka gaaladiiyo dabada jeediyeen nimankii iyagaa laftirkooda oo dabada jeediyey kulli 324 saxaabadu ahaayeen dagaalna aan diyaar u ahayn kuwaana 1,000 kibray ahaayeen oo fardahooda iyo gaadiidkooda watay oo u yimid marka inay muujiyaan waxa ay yihiin ciidan dagaalna soo dagaal galay ayagoo dabada jeedinaya cararaya ayaan arko yidhi cumar markaasaan aayadda fahmoy ilaahay wuxuu yidhi sayuhzamu waa la jebin doonaa aljamcu isu tagga ay jamiic wayuwalluuna waana jeedi doonaa addubura dabaday jeedi doonaan bale asaacatu saacadda qiyaamada mawciduhum ballankooda ah waxaanoo ka daran qiyaamada ballankooda marasha lagu ballan waqtiga lagu ballama ah wasaacatu saacadda adhaa ayaa dhib badan wa amar oo qaraar badan ina almujrimiina dembiilayaashu fii dalaalin baadihay ku sugan yihin iyo wasucuray ku sugan yihin iyo wareer yowma maalin yusxabun lagu jiidi doono fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhin wejiyadooda lagu jiidi doono duuquwa la oran doono dhedhemiya masa saqara taabashadeeda dhedhemiya ilahay wuxuu inaa inaga kula shayin shay kasta khalaqnaahu ay inaa inaga khalaqnaa abuurna kula shayin shay kasta khalaqnaahu abuurna biqadar
qorshe ku abuurnay wamaa amrunaa amarkeenu maaha ilaa waaxidatun mid mooye kalamxi il oo kale iyo eegmo oo kale ah bilbasari aragti indhaha wax lagu eego waa ilbiriqsi oo kale oo amarkeenu uu ilaahay leeyahy ahaaw ilaahay hadduu yidhaahdo wuu ahaanaa sheega jazaaka allahu khayr walaqad xaqiiqda ilaahay wuxuu ahlakna waa baabi'inay ashyaacakum ee ashbaahakum kuwa idlamida wa amhaalakum mushrikiintaanay kuwa idlamidahan baabi'ino ilaahay leeyahy ee fahal min mudakir qof waan toobaa ma jira wa kullu shayin shay kastoo facaluu ay sameeyeen hu shayga fi zubur kitaabuu ku sugan yahay kutubuu ku sugan yahay wa kullu sagiirin wax kastoo yar wa kabiirin wa kullu kabiirin mid kastoo weyn mustatar mid la qoray wey ina almuttaqiina kuwa muttaqiinta ee ilaahay ka cabsada ee rususha ilaahay rumeeya tawxiidka qabsada daacada laazima fii jannaatin jannooyina ku dhex sugan yahay wa nahar iyo webiyaalo fii maqcadi sidqin run booskeed meel la ammaano waa sidqi wixii loo tiiriyo waa ammaan waa maqcad majlis meel la fariisto oo dhab ah ayaa u sugnaaday cinda meliiki mid lahaansho badan meliik waa siiqa mubaalaga mid lahaansho badan wax walba leh meliigaasoo muqtadirin awooda wallahu aclam wasala allahu wasalam cala nabiyina maxamed